magacaygu waa maxamed khaliif xasan gudoomiyaha urur siyaasadeedka Sincad haddana ah gudoomiyaha ururada siyaasadda ee Puntland runtii galabta waxaan halkan ku yeelanay shir u dhaxeeyay gudoomiyaasha ururada iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni runtii jawi wanaagsan ayuu ku dhacay shirku falanqeyn badan ka bacdi madaxweynaha iyo ururada siyaasadda majority-gooda intooda badani waxa ay isla qaateen in qodobadii 13 ahaa ee ururadu ay soo saareen 7 urur ay soo saareen 11 ka mid ah waa la isku waafaqay xal baa laga gaaray laba qodob oo ka midana waxa ay noqdeen qodob ka mid wuxuu noqday qodob dastuurka u baahan in la furo qodobkaasi waa uu adkaaday ka bacdina waxa la isku qaatay in qodobka laga tanaasulo waxa kale oo jiray qodobka in la yareeyo golayaasha deegaanka nambarkooda iyadana xaaladda hadda jirta iyo wacyiga siyaasiga ah waxa la isla qaatay in sidaa lagu daayo sidaa darteed ururada intooda badan iyo madaxweynaha oo matalaya dawladda Puntland waxa la isku waafaqay in dalku doorasho aado sidaasna lagu soo gabagabeeyo qoraal rasmina way ku soo bixin doonaan in qodobadaasi hadii Ilaahay uu raali ka noqdo marka waxaan dalka u sheegaynaa in wada hadalkii socday mira dalkiisii uu caawa dhacay sidaasna go'aan lagu qaatay ururada intooda badan ay go'aan ka qaateen 6 urur iyo madaxweynaha oo matalaya dawladda go'aankaas ayaa la isla qaatay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu dalkeenu xaaladda siyaasadeed uu ku jiro oo ka baxo dalkan ay ka dhacdo barnaamijka dimuqraadiyaddu oo ka hirgalo ayaan rajaynayaa waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq walaalayaal waa sida uu gudoomiye jabiye gudoomiyaha Sincad uu sheegay aniga magacaygu waa Cabdikaafi Xasan Maxamed gudoomiye ku-xigeenka ahna gudoomiyaha ururka Mustaqbal walaalayaal sida uu sheegay waxa muddo bila aan ku jirnay dib u eegis arrimaha doorashooyinka maxaa caqabada maxaa wadi kara maxaa waayo aragnimo uga helay doorashooyinkii aan soo galay oo 3 degmo arrimaha markaanu ka munaaqishoonay waxaanu isla gaarnay ururo 7 ah inaanu bal eegno caqabadaha hadda aanu bal fududeyn karno ee wada xaajood aan galno oo xukuumadda iyo ururada kale aan la galno gaar ahaan xukuumadda 13 qodob waa sida gudoomiye jabiye sheegay 11 baanu isla garanay oo muwaafaq noqday annagu dalka iyo dadka horumarkiisa iyo dimuqraadiyadiisa iyo nidaamkiisa iyo doorashooyinkiisaanu ummadda wakiil uga ahayn markii aan aragnay qodobadaas oo dhan in xaggii dawladda laga soo dhaweeyay laba qodob ay fuleen qodobka saddexaadna insha Allah ilaa bari aan filayno uu fulo inta kalena principal ahaan kulli aan isla qaadanay qoraal saxiixana aan ku soo wada saarayno oo wada jira oo miidiyahana ka heli doontaan labada qodob oo soo haray oo ah qodobka waxa weeye 8aad ee qodobadii 13 aan soo saarnay oo sheegayay nidaamka 3 xisbi in la ka badino anoo aragti waxay nala ahayd sax ah wanaagsan laakiin waaqaca iyo xeerarka iyo dastuurka baa noo diiday inaanu mataqaanaa waa dhinacaas naga adkaatay waqtiga la haysto oo hal sano kaliya ah inaysan mataqaanaa suurtagal noo ahayn in qodobkaas noo sahlanaado waxa noo sahlanaaday listadii xirayd oo insha Allah ururada iyo Tibek ay farsamo ahaan insha Allah caqabadii ku jidhay ay ka wada saari doonaan iyagoo is ogol oo wada jira ay ku gali doonaan dastuurka Puntland furidiisu waa shay aad u adag waxaan xasuustaa madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole madaxweynihii hore ee Puntland oo mar beelaha qaarkood ay cabanayeen yiri adkeeyeen dadkii qoray oo adkeeyeen dastuurka ahaa inaan la furi karin furidda dastuurku waxay noqotay shay adag oo aan la gaari karin
laakiin insha Allah waxay ka fududaan doontaa markii saddexda urur ama saddexda xisbi qaran ay soo baxaan ayay waxay leeyihiin mandate full ah oo ay wax ku bedeli karaan ku soo jeedin karaan haday tahay baarlamaanka dambe tiradiisu noqonaysaa haday tahay public president madaxweynuhu public buu noqonaysaa parliamentary buu noqonayaa qodobada caqabada oo dhan waxa mandate u leh guddiga rasmiga ah ee ka dambeeya guddiga TPEC iyo ururada ayaa sixi doona iyo xisbiyada ayaa sixi doona qodobka labaad isagoo caqabadaha kamid aha hadda waa islaaf garanay waa ka in sheegay kan saddexaad oo tirada hal la yareeyo waa noqon weyday wax waaqic ah sababtu waxa weeye dadkii waa beelo waa deegaamo dadkuna inay wax iska wada dhixarkaan ayay rabaan listada anagoo dhan madaxweyne way isku raacsaneen inaan yareyno laakiin waaqic ayaa noo saamixi waayay marka waqtigeeda ayaan iyadana u deynay inay sidaa noqoto walaalayaal awal toddobaanu ahayn waxa weeye hadda 6 baan ku taaganahay ururadu mawaaqiftooda ay leeyihiin dalkii dadkaanu mas'uul ka nahay anagoo dalkii dadka u turayna waxaanu go'aansanay 6dayadan urur inaan doorasho dalka u weerqaadno horaan ugu galay caqabadaha hadda jira dadku waa oran karaan maxaa jira shalayba waa ku gasheen waa run anagoo ku galay doorashadii saddexda ahayd ayaanu maanta bal in wax laga bedeli karo waa ra'yigayo waa rogrogmaya waa ra'yi rogrogmaya waxa waaqaca iyo sharcigana aan dhaafsanayn marka sidaa darteed annagu wixii soo haray labada qodob madaxweynaha wuxuu nala qaatay 11 ka qodob annaguna labada qodob oo aan waaqac ku qanacnay inaysan waaqac ahayn hadeer in la fuliyo ayaanu annaguna ka tanaasulay ummadana uga turnay ummadda Puntland doorashay diyaar u tahay ururadu isma saarna shuruuc diidaysa jiray laakiin hadeer waa bahalkii waxa weeye annagu go'aankayga waxa weeye doorashadii waa galeynaa